khiyaarta hawada naga dhageysanaysa waa mar kale iyo barnaamijkeeni wararka qodobadaan idinku hayana maanta waxa kamida xamara xaaji muuse oo lagu xulay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sida la sheegay xamara xaaji muuse oo ah nin dhalinyaro ah oo dooda xuquuqda dadka dulman iyo deegaanada la hakrad huwanta iyo koonfurta gafuur culustaana cagta la dulmara waxa loo haystaa barnaamij aan wali soo bixin balse xogtiisa loo ogaaday oo ka diyaariyay iskuulka weyn ee Kuweydiga loo yaqaan ku yaala magaalada Hargeysa warar kale ayaa iyaguna waxay sheegayaan inuu xidhay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka Xirsi Cali Xaaji Xasan kaasoo u dhawaan ka diyaariyay barnaamij dhimbiil dabaka kulul sida la wada ogyahay Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ah gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee wadani ayuu dhawaan xamra xaaji muuse ka diyaariyay barnaamij ka hadlaya inuu Xirsi Cali Xaaji Xasan dhammaan baragii la soo shaqeeyay ee kaadiriinta ee kula soo tabcay dhisitaanka xisbiga uu cidla kaga dhaqaaqay una soo dhaweystay dad kale oo aan xisbiga wax tacaba gelin wana barnaamijka loo malaynayo in loo xidhay xamra xaaji muuse oo seen horeba u sheegay magaalada Burco lagu xidhay maanta hase ahaatee war jiraaba cakaaro iman wararka kale aan idin hayna waxa kamid ah suldaanka guud ee beelaha Habarawal oo maanta si mugiya miisaan loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradu ka kacaan ee Cigaal International Airport ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland suldaanka waxa soo dhaweeyay ummadii reer Somaliland oo aan kala harin sida salaadiintii madax dhaqameedkii waxgaradkii aqoonyahankii siyaasiyiintii iyo mas'uuliyiintii dawladda suldaanka waxa loo soo dhaweeyay si aan sanadad hore loogu soo dhaweyn dalka oo looma kala harin soo dhaweyntiisa saqiir iyo kabiir reer Somaliland daawadayaal halkaan nagala socotaan waa Kennedy Media waa Kennedy barnaamijkeeda la socotiinayay sidoo kale waxaad naga daawanaysaan Facebook-gayga waa Kennedy fadlan subscribe iyo like share intaba xaq baan idinku leenahay ku booba